anigu waxaan Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax oo ah maayarka Ceergaabo haddeer jooga haddii aan ka warramo taariikhdayda anigu waan ku dhashay meesha la Midhishi oo u jirta Ceergaabo 25 mayl 1942 waxaan ka galay malxamada Quraanka waxaan ka galay iskuulkii Midhishi markii dambe waxaan soo wareegay Dayaxa markii dambe waxaan noqday nin ganacsato muddo dhowr iyo 40 sano waxaan ganacsi waan gaaray waxaan ka bilaabay retail license waxaan ku gaaray hooleysan anigu waligeyba kuma talagelin inaan beer dawladda joogto iyo xafiis tago waxaan haystay NGO iyo shirkad dhisme Hargeysan tegey labadaasan hay'adaha marba mid wax ku doonan jiray nin jaamiciina waa ila joogay qoraa aad u qoraayo injineer qandaraasyaan qaadan jiray niman markaa meesha ka ahaa wasiiro ayuu markadayga baxay ilaa had waxay gaadheen inay tagaan meelihii aan qandaraasyada ka qaadan jiray oo yidhahdo ninkaas waa qaran dumis waxba lama siin karo erka badan baan diray wari adeer iska kaydaayo iska heshaato idaaye ergadii way shaqayn weyday waxaan u imaayirkii markaa iga horreeyay aniga halka joogay isla faamiliga ahaayeen hebel iyo oran maayo wariga reeb baan ku yidhi waan kaa reebayaa way soo weyday maanta dambaan u imi waxaan ku yidhi anigu wasiir doonan kari maayo adaan kaa qaadaya meesha mar dad iga reeb weyday horta sidaasaan meesha ku tegey inaa ka qaadid markii la warkii waa ka dhabaysay sidee kuugu suurta gashay waa igu gashay dee soo sharax baan ku sharaxayaa marka liis bay ahayd marka ugu horreeyey doorasho toosoo one man mine liistada xiran liisteed xisbi baa markaa ahayd dee liistadii baan ku soo galay markii ugu horreysay 2 jeer dambena doorashadaan ku soo galay 2003 bishii Maarch ayaan maayar ka noqday markii labaadna waan galay markii saddexaadna waa iminka waxaa la yidhi maayarka Ceergaabo waa maayarka ugu waqtiga dheer maayarka dad badan baa waxay leeyihiin xirfadda Ismaaciil uu leeyahay mar walba maayar ku noqdo wallahi saali horta ma sheegi karo amar ilaahay isaga daa amarka ilaahay isaga daa xirfaddan idhaahdo xirfadda iyo raganimada iyo fariidnimadaas leh ma garanayo amar ilaahay baan u qabaa inay tahay mar walbana isma lahayn ku noqo mar walbana saa ka tag laakiin mar walba xiisad uun ka dhalanaysa dadka ayuu maan ugu noqdaa markaa